yaraan 8 qofood ayaa ku dhintay habeenadii xalay ahayd xilli ay isku dayeen inay ka gudbaan kanaalka Ingiriiska, kuwaasi oo ka yimid dalka Faransiiska una socday boqortooyada Ingiriiska, sida ay sheegeen mas'uuliyiin ka tirsan gobolka Faransiiska ku yaala. Dhowr muhaajiriin ayaa naftooda ku waayay xalay, taasi oo dooni kula degtay kanaalka Ingiriiska. Ismaamulka Basta Galaxis ayaa wakaaladda wararka ee AFP oo soo xiganaya ilo wareedyo ka tirsan booliiska Faransiiska ayaa ku warantay in musiibadani ay dhacday kadib markii doonidii ay la socdeen ay degtay. Ku dhawaaqistan ayaa timid wax yar 2 toddobaad ka hor kadib markii 12 qofood ay ku dhinteen kadib markii ay dooni la socdeen ay degtay xilli ay isku dayeen inay ka gudbaan kanaalkan. Waxay ahayd musiibadii ugu dhimashada badnayd sanadkan, waxayna noqotay tirada dhimashada muhaajiriinta iyo qaxootiga kanaalkan ku naf waayay 37 qofood. Sidani oo kale 2023 ayaa halkani waxaa ku dhintay tiro gaaraysa 12 qofood. Gudoomiyaha gobolkaas Jacques Blanty ayaa lagu wadaa inuu shir jaraa'id qabto geliga dambe ee maanta. Maamulka badaha ayaa sheegay Sabtidii in isku dayo badan oo ay dadku ku doonayaan inay uga gudbaan doomaha yaryar la isku dayay maalmihii la soo dhaafay, iyadoo 200 oo qofood la soo badbaadiyay 24 saacadood ee la soo dhaafay ama Jimcihii iyo Sabtidii intii u dhaxaysay. Sida laga soo xigtay saraakiil Britain ah, in ka badan 22,000 oo muhaajiriin iyo qaxooti ah ayaa gaaray Ingiriiska iyaga oo ka gudbaya kanaalkan tan iyo bilowgii sanadkan. Ra'iisul Wasaaraha Ingiriiska Keir Starmer iyo madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ballan qaaday xagaagan inay joojiyaan wada shaqaynta waxqabashada tirada soogalootiga ee aan sharciga lahayn. Bishii Luulyo, 4 qof ayaa ku dhintay kadib markii doonidii ay la socdeen ay kula degtay xeebta Boulogne-sur-Mer ee waqooyiga Faransiiska. Bishii Abriil, 5 qof oo ay ku jiraan ilmo carruur ah ayaa ku dhintay doon buux dhaaftay oo siday 112 qofood oo ka timid gobolka Vimy-Roucoux oo qiyaastii 32 kiiloomitir ama 20 mayl koonfureed kaga beegan dekedda Galaxis ee Faransiiska, kuna sii jeeda dalka Ingiriiska ama UK. Musiibadii ugu dhimashada badnayd ee noocan oo kale ah waxay dhacday bishii November 2021, markaasi oo 27 qofood ay ku dhinteen markii ay la degtay doontii ay la socdeen.